bani aadamka badankii ayaa yaqaan YouTube, balse maxaad ka taqaan ninka muslimka ah ee ikhtiraacay ahaana qofkii ugu horreeyay ee muuqaal soo geliyay aaladan. wiil 26 jir ayuu maskaxdiisa ka soo maaxday hal abuurka shirkadda labaad ee loogu booqashada badan yahay internetka, halkay ahayd in lagu tixgeliyo fikradda iyo farsamada dhismaha YouTube ayaa la qiyaamay, waxaana laga qaatay wixii uu qalmay, isagoo yeeshay mudnaan hooseysa. saaxiibadiisii kala shaqeeyay hirgelinta shirkadda YouTube ee Jad Haller iyo Stephen Jen ayaa dhacay ama biliqaystay xuquuqdiisii curinta YouTube-ka, waxayna shirkadda Google kaga iibiyeen barta YouTube-ka lacag gaaraysa 1.65 bilyan oo dollar. labadooda ayaana qaybsaday 1 bilyan oo dollar, halka ninkii asaasay shirkaddan ee Karim Jawad la siiyey 64 milyan oo keliya, taasoo lagu tilmaamo mid ka mid ah khiyaanooyinkii dhaqaale ee tiknoolajiyadda casriga ka dhacay. saasoo ay tahay, Karim Jawad maanta waa bilyaneer iyo ganacsade guulaystay oo aad isu qariya ama ka dhuunta saxaafadda. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. mahadsanid. maanta waxaan baranaynaa mid ka mid ah hal-abuurayaashii YouTube-ka, sidoo kalena ahaa ninkii ugu horreeyay ee fiideo soo dhiga barta YouTube-ka. Jawad Karim wuxuu dhashay 28 Oktoobar 1979, iminkana waa injineer Maraykanka ku nool oo looga haray farsamaynta softweerada, wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa waddanka Bangladesh, walow hooyadii ay Jarmal tahay. Karim waa mid ka mid ah 3 qof ee hal abuuray aaladda YouTube, waxaana la sheegaa inuu qaanada kore ku jiro ama uu yahay qofka maskaxdiisa uu ka soo maaxday curinta iyo abuuridda shirkadda YouTube. waxaa kaloo muujinaysa hal abuurkiisa iyo awooddiisa maskaxeed inuu noqday qofkii ugu horreeyay ee muuqaal soo saara YouTube-ka. fiidiyowga lagu bilaabay barta YouTube-ka ayaa la magac baxay aniga oo beertayda xayawaanka jooga miadaso, waxaana Jawad Karim uu soo geliyey barta YouTube-ka goor subaxa 23 Abriil sanadii 2005. muuqaalka ayayna daawatay in ka badan 260 milyan oo qof laga soo bilaabo maalinta ilaa 2023. Jawad Karim ayaa intii uu ka shaqaynayay shirkadda Baybal waxa uu saaxiibada la sameeyay YouTube-ka ku bartay isla shirkadda Baybal, oo intii ay wada joogeen ayuu soo siyaadiyey barnaamijkiisa dhismaha YouTube-ka. inkastoo Karim uu ku dhashay waddanka Jarmalka, qaybtii la oran jiray Jarmalka bari intaysan midoobin labada gobol ee Jarmalku, ayay qoyskiisu waxay ku noolaayeen magaalada Meersburg, taasoo markii dambe ay uga guureen cabsi cunsuriyadeed, halkaasoo ay xuduudii labadii Jarmal uga tallaabeen Jarmalka galbeed sanadii 1980. laakiin cabsidii ay dareemayay ma aysan dhammaan, sidaa awgeed isaga iyo qoyskiisu waxay u guureen dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada Minnesota sanadii 1992. Jawad Karim ayaa dugsigiisii sare ee St. Paul ka qalin jabiyey sanadii 1997, kadibna waxa uu galay jaamacadda Illinois. inkastoo kambaska jaamacadda uu firaaqeeyey si uu uga shaqeeyo shirkadda Baybal, haddana waxbarashadiisa ma uusan joojin oo waxa uu shahaadada koobaad ku qaatay cilmiga kombiyuutarka, waxa uuna sii raaciyey heerka labaad ee waxbarashada oo uu ka qaatay jaamacadda Stanford, taasoo iyana culumta kombiyuutarka uu ka diyaariyey. waxaa kaloo intaa u sii dheer inuu ku hadlo luuqadda Jarmalka, Ingiriiska iyo Bangaaliga. intii uu jaamacadda dhiganayay, Karim waxa uu si iskaa wax u qabso ah kula shaqaynayay shirkadda internetka ee caalamiga ee loo yaqaan Silicon Graphics, oo uu kala shaqaynayay maaraynta xogta xajmigeedu uu badan yahay, isagoo xilligaa isticmaalayay barnaamij lagu magacaabo 3D Focus oo xogaha culus lagu yareeyo kadibna internetka dib loogu saaro, iyo weliba barnaamij kale oo ugu talagalay sida raajooyinka in xubnaha bini'aadamka lagu arki karo. muddadii uu ka shaqaynayay shirkadda Baybal wuxuu Karim ku bartay raggii la abaabulay YouTube-ka, waxayna ahayd sanadii 2002. muddo ay ka wada shaqaynayeen sidii loo hirgelin lahaa fikradda shirkadda YouTube ayaa markii ugu horreysay sanadii 2005 waxaa hawada la soo geliyey barta YouTube-ka. bilooyinkii ugu horreysay ee shirkaddu ay shaqaynaysay, Jawad Karim wuxuu ahaa xubin firfircoon, balse waxa uu diiday inuu shirkadda ka sii shaqeeyo sababtoo ah wuxuu doonayay inuu jaamacaddiisa sii wato. waxa uuna go'aansaday inuu saaxiibadii ula shaqeeyo sidii la taliya dadban, weliba isagoo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadda. taas ayaana sababtay inuu sheerka ugu yar ka qaato markii shirkadda laga iibiyey Google. lacagtii laga bixiyey xilligaana waxay ahayd 1.65 bilyan oo dollar, isagana waxaa ku soo aaday 64 milyan oo dollar oo keliya, halka saaxiibadii ay qaateen 1 bilyan oo dollar. sababtoo ah Karim ma uusan ahayn nin dadka badankii ay u ogsoon yihiin inuu ikhtiraacay shirkadda YouTube, waxaana aad u yarayd kaalintiisa dhex joogidda. sidaa awgeed waxa uu waayay lacag gaaraysay 1 bilyan oo dollar. laakiin warbaahinta galbeedku badankeedu waxay tebisay inay ahayd khiyaanadii ugu weyneyd ee dhinaca tiknoolajiyadda ee dhaqaale la xiriirta, taasoo la sheegay in lagu dhacay bilyaneerka reer Bangladesh ee Jawad Karim. bishaaro mudanayaal iyo marwooyin, ma ku nooshahay wadamada qurbaha sida Canada, Maraykanka, Yurub iyo Asia?
shirkadda Forever Living waxay ku haysaa fursad ganacsi oo aad faqriga kaga bixi karto weliba adoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada, taasoo aad ka faa'iidaysan karto kagana macaashi karto maal adduunyo aan xad lahayn. kol haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama doonayso inaad noloshaada wax ka beddesho, fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guulaystay heshayna abaalmarino sarreeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living. kalena xiriir WhatsApp number +1 20 64 58 36 25.